maanta shirka jaraa'id ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo qabtay wuxuu daaran yahay maadaameynu muddo 6 bilood ku dhow xiriirka kubadda cagtu shaqaynayay maalinba hore uga socono geediga insha Allah waxaan ku wada fadhinaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ayaa isna goobjoog ka shirka jaraa'id kulay nuxurka iyo ujeedada inta badan isaga ka hadli doona maadaama gudoomiye joogo anigu waxaan ku yara celinayaa in ciyaari Soomaaliland meel fiican oo qurux badan marayaan insha Allah saddexda gobol harayna si dhaqso loo bilaabayo horyaalkoodii sidaasina insha Allah ciyaari Soomaaliland meel qurux badan noo gaari doonaan gudoomiye ku-xigeenku runtii aad iyo aad buu mahadsan yahay sida uu sheegay shirkan jaraa'id runtii wuxuu daaran yahay ku dhawaaqista gudida kala saarista tababaraha xulka qaranka Soomaaliland saynu wada ognahayba muddo waxaynu suganay in uu dalkan yeesho xul kubadda cagta matala waxaynu wada ognahay muraayad dal laga daawado waxa ugu quman ciyaaraha dal waliba muraayada laga eego hadba sida ay ciyaaruhu u eeg yihiin ayaa dalka quruxdiisa lagu tilmaamay inuu ekaato waxaynu wada ognahay wadamo badan oo dunida maanta runtii aan aad u weyneyn oo aynu ka population badan nahay ama aynu runtii ka horumar badan nahayba in magacooda in badan ay qayb ka qaadato inay dunida la tartamaan ciyaaruhu tahay kullay markuu shirkan dhamaado soo jeedintan aan hadalno bahda saxaafadda wixii su'aalaha ay qabaan wayna weydiin doonaan balse hordhac yar baan ka horeysiinaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliland aanu hadda nahay gudidii fulinta waxaa la doortay 22 bishii Oktoobar 2020 waxaanu xilka la wareegnay 18 November 2020 waxqabadkii ugu horeeyay waxaanu ogeyn ilaa bishii December ilaa January waxaanu aad ugu mashquulsanayn xeerarkii iyo nidaamkii lagu hagi lahaa ciyaaraha dalka oo dalka dhan gaara bishii Febraayo waxaanu bilownay horyaaladii dalka oo ugu horeeyay horyaalkii caasimadda iyo kii saaxil waxaanu kaloo dalka dibadiisa u dirnay 10 garsoore oo iyagu soo qaatay shahaadada tababarnimo ee heer CAF waan uga mahadnaqano dawladda aynu jaarkanahay ee Itoobiya intaaba runtii waxa ku suntan saaxiibada xiriirka kubadda cagta iyo dadka garab istaagay oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Boos Mire oo isagu fahmay mas'uuliyadda iyo waajibaadka xiriirka kubadda cagta ay leedahay una madax banaaneeyay runtii inaan si waafiya shaqadeeda u qabsano intaa kadib waxaanu ku dhawaaqanaa saaka gudidii runtii kala saari lahayd tababarayaasha waxaanu ognahay in ay dad badan runtii danaynayaan inay noqdaan tababaraha xulka qaranka Soomaaliland haddaba gudidan aan halkan ku magacaabay waxa gudoomiye u ah ugu horeyn saaxiibkay Khadar Xuseen Jaamac Jilaal oo ah gudoomiye ku-xigeenka gudidan u ah gudoomiyaha gudidan soo kala saaraysa tababarayaasha sidoo kale waxa gudida qayb ka ah Jamaal Mahdi Xaashi oo la wada garanayo aqoontiisa sports iyo heerka uu kaga jiro bulshada ciyaaraha Soomaaliland waxa isna xubinka Cismaan Xaaji Cumar Luqmaan oo runtii in badan ka soo shaqeynaya ciyaaraha dalka waxa isna xubinka Maxamed Cumar Cabdi oo loo yaqaan Xato oo runtii ciyaartoy horena ah waxa isna runtii qayb ka Farxaan Cismaan Faarax oo loo yaqaano Farxaan Bookh oo aynu wada ognahay aqoontiisa sports sidoo kale waxa qayb ka gudidan Awil Ibrahim Aadan oo loo yaqaano Cagjar oo isna runtii dalka aad uga soo shaqeeyay ciyaaraheeda ugu dambeyn waxa gudidan isna xubinka Khadar Cabdi Maxamuud oo loo yaqaano Khadar Timo waxaan runtii u rajaynayaa gudidaas in ay si runtii wanaagsan u guudan doonaan waajibaadkooda oo ah in ay runtii soo kala shaandheeyaan soo kala saaraan siifiyada ka qabtaan dadka danaynaya inay noqdaan tababaraha xulka qaranka Soomaaliland runtii waxaan rajaynaynaa waqti dhow in maadaama sida gudoomiye ku-xigeenku sheegay ciyaarihii horyaaladii dalku maanta gabagaba ay marayaan oo kulamo kooban dhiman yihiin gobolada dhimanna ay runtii muddo gaaban ku soo dhamaan doonaan in ay noqotay lagama maarmaan mar haddii dhalinyaradu ay soo ciyaareen heer degmo heer gobol
heer league oo ah Serie A maanta halkay uga dalacayaan ay noqoto Somaliland national team runtii gudidan waxaan aad ugu qanacsanahay kartidooda aqoontooda ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu waafajiyo siday u soo xuli lahaayeen qof ku habboon matalidda dalkan u noqdo tababarihii qaranka waxaan u mahadnaqayaa runtii dhammaan dadkii ka wada qayb qaatay inay ciyaaro heerkan soo gaaraan waxaynu ognahay kubadda cagta ama ciyaaraha Somaliland waa qori isu dhiib qofba inbuu soo gaarsiinayay annaguna runtii waxaan rajaynaynaa inaan intaa kasii gudbino